Dagaalamayaal ka tirsan ururka Xisbullah ayaa gudaha u galay Syria iyagoo 3 askari oo ka tirsan ciidanka Suuriya ku dilay weerar ay ka fuliyeen duleedka magaalada Xamus, sida ay warisay Al Jazeera oo xiganaysa wasaaradda difaaca dalka Syria. Waa weerarkii ugu horeeyay oo ay Xisbullah ka geysanayso gudaha Syria tan iyo markii xukunka laga tuuray nidaamka Bashar al-Assad. Wuxuu weerarku ku soo aaday xilli dowladda Syria ay ku guuleysatay dadaaladii xal u helidda khilaafaadka gudaha kadib markii nidaamka Dimashq uu heshiisyo la gaaray maamulada gobolada ee ay degan yihiin bulshada kala duwan. Ma cadda haddii weerarkan uu bilowday uu yahay isku dayo qalqalgelin oo laga soo abaabulayo dibadda kadib markii dowladda Syria ay ka hortagtay abaabulka gudaha ee weerarada lagu waxyeeleynayay xasiloonida cusub.